nabad haddii la waayo wax waliba waa dumaan nolosha qiimaha ugu badan islaamnimo marka laga yimaado waxa koowaad ku xiga waa nabad dhaqaaluhu waa burburaa diintu waa burburtaa cibaadadu waa xumaataa dembigu waa fududaadaa dagaalada iyo colaaduhu markay dhacaan xagga alle dadku waa ka jeestaan nabaddaa cibaadata allah intay nabadi joogto ayaa dadku cibaadaysanaya intay nabadi joogto ayaa dadku tijaaraysanaya intay nabadi joogto ayaa dadku wax baranaya nabadday wax waliba ku xidhan yihiin walidaalika ilaahay markuu u manno sheeganayay quraysh muxuu ugu manno sheegtay liilaafi qurayshin ilaafihim maxaa ku xiga rixlata shitaa'i wasayf ilaahay wuxuu yidhi alladii أطعمه من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف الله قاچنا يدين كقوديي يلا بدي سفر تجارة يدين سيي أمننا يدين سيي ضدكو يدكو احترامه عربية دو اسم رسيبة وحل لها هل كان هو بيت الله الحرام وحلقو مدره نكا بهد لها دو صوت على عربات فحاولين جرينتو كصباح يالا سوق لما تجي جري إذن reer maka ilaahay wuxuu ugu manno sheeganaya ule war nabadna waa idin siiyey waxa cuntaan iyo dhaqaalena waa idin siiyey nebi ibraahimna labada buu ugu ducaynayaa nebi ismaaciil iyo xaaskiisii haajara ahayd iyo qoladu meesha cidlada ee lama degaanka dejiyey ducada koowaad ee qur-aanka ku soo aroortay ee nebi ibraahim ambiyada ducadoodii koowaad ee ibraahim taasay ka warramaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala nabad siiyo iyo arsaaq thamaraadka iyo midhahaasi إن إلهي سبحانه وتعالى هو أرزاقه بالمصطلح الحديث وحين نذكرنا قضية سياسية واقتصادية بكدعية وأنا بتقليد يوم مدة دقرنشية هذه إيوه براد هذه برواقة هذه وأنا يسمح لي أن تبضل نبض دقالها في عانك الرشا هذا نبض اللنطو قالوا نبض القرآن لكن نبضنا ما جرته هذه عدالة اللواية نبدو waxay ku sugnaato waxa kamid ah cadaalada ugu horeeya ayuha alahibba duca nabi ku ducaysto quraanka ugu dambaysana waata nabi nuux ku ducaynayo iyaduna waxay ku saabsantay aakhiro rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلهي وقولي دبقيق الداف أنيقا إيا والدك إيا مؤمنين تنتن قريقا سوكا شيء راعدي إيا مؤمنين إيا مؤمنات كدمان تودب إله دبقوا الداف انت الظالمين إيا قالضنا إله هلاقوا كردقوا كدعي ودعاء وضا ما يسأل قرآن فتالي النبي وكدعيني إذن آخرية دون بأن بيضا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كويرا قلت المامية إيا كدعيني haddaad markaa eegto ambiyada ducooyinka ku soo arooray qur-aanka ku yaalla duco wax kasta oo aynu islaahna inagu waa baciid way ku duceeyeen oo nabiyullaahi nuux qur-aanka waxaa ku soo arooray in badan isagoo ilaahay baryaya oo leh rabbi insurnii bima kadabuun innii maqluubun fantasir waxaa soo arooray ducooyinuu isla nebi nuux habaaraya kuwa kale gaaleen رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا ومنها كالريب يقول كوا قالت لكن وقورما ومركو سغال بقول يكونتون سندودو يري يدين كلا مسلم مركو سكستو قيمية واركين أنا وحبك جري هنون كانوا لو دعين كرا حديث دد لغا رجا قبايي وحديث البخاري طفيل بن عمر صحابي لو رنجري من غير دوسة قبيلة دي أبو هريرة كان شيء qabiilka odayga caaqilka u ahaa ama odayga u ahaa oo ah raggii ugu horreeyay maka ku islaamay ayaa tolkii qabtay dabeetana in badan buu ilaahay ugu yeedhay in yar baa raacday xoogaa ayaa raacay laakiin tolweynihii way diideen diinta markuu ka quustay buu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows si kasta ula hadloo diide alla iyo rasuulkiisii diide casat wa abat buu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisii waa caasiyeen oo waa diideen ee ilaahay rasuulkiisiiyo maanta waxaan kuugu imi buu yidhi inaad habaarto kuwa in ilaahay balaayo ku rido
dabeetana nebigu gacmuu kor u taagay dadkii markaasay yidhaahdeen daws halaagsanti nebi maxamed baa hadduu habaar ugu dhaqaaqay kuwaasi halaagsameen nebigu muu habaarina wuu duceeyey allahuma hdi dawsan wa'ti bihim buu nebigu yidhi ilaahow reer daws hanuuniyo ii keen buu ku duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam daws hanuuni oo ii keen ficlan way hanuuneen waana yimaadeen oo dadkii muslimiinta difaacayay markii dambe ayay ka mid ahaayeen laakiin nebi nuux waa markuu nimankan ka quustay ee diin la-aantooda 950 sannadood war ku waday ay waxba ka dhegaysan waayeen ayuu arkay xataa kuwooda dhashaa inay gaalnimadu ku korinayaan markaasuu ilaahay baryay isagoo leh rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina da ilaw mid guri dega ha ka reebin buu mid guri dega ilaw ha ka reebin buu leeyay ayuha alaxiba darsigeenoo dhammi wuxuu ku saabsan yahay inaynu badsanno ilaahay baryadii dadkii saalixiintii iyo ambiyadii saasay ahaayeen wax kastoo maanta innaga agteenna laga yaabo inay baciid yihiin oo fog yihiin ambiyadu ilaahay way weydiisteen ilaahayna isagoo ka aqbalay buu qur-aanka inoogu tilmaamay iyadoo cadow ka adkaaday oo laga xoog batay oo ay baryayaan oo leeyihin ilaahu noo hiili iyagoo dhali waayey qaar ka midi oo gaboobay oo 80 jiro iyo wax la mida gaadhay iyagiyo islaamahoodiiba gaboobeen oo ilaahay baryayoo le ilaahu walad saalixaysi oo ilaahay siiyo leeya islaantan uu hagaajino walad saalixa la siiyo waxaa ilaahay kaga warramayaa ambiyo bukootay oo xanuunsatay oo muddo jiiftay oo ilaahay weydiisatay inuu caafimaadyo ka kacay waxaa ilaahay kaga warramaya kuwa kurbaad kala galay oo rabbi ka saaray waxaa ilaahay ka warramaya kuwa acdaadoodii aan la halaagay idan waxaasoo dhan haddaynu aayaadka qur-aan in yar dib u milicsano ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi nuux oo 950 sano intuu dacwo waday waxba laga dhegaysan waayey oo isaga iyo wamaa aamana macahu ilaa qaliil in yari ku soo hadhay ilaahay baa wuxuu leeyay walaqad naadanaa nuux waxaa xaqiiqaa baa ilaahay leeyay inuu noo yeedhay nebi nuux baa noo yeedhay baa ilaahay leeyay ilaahay se muxuu isku sifeeyey marka fala nicma almujiibuun baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala kuwa ajiiba annaga u nimco badan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala marka dhibi ku qabsato horta dhan kale ha u jeesani dhib adduun ha noqoto dhib aakhira ha noqoto waxay doontaba ha noqotee haddaad damacdo cid inaad wax weydiisato waidaa sa'alta fas'al illah haddaad rabto inaad cid uun wax weydiisato rabbi ka bilow